markaa kusoo dhawaada mar kale iyo xiisadeenii lixaad oo aynu ku qaadan doono habka ama qofka iibiyaha ah ama kaasheerka ahi uu u gelayo akoonkiisa waxna uu iibinayo alaabaha. marka alaabaha iyo waxyaalaha sida uu iibinayo kaasheerku ayaan idinku tusi doonaa xiisadan aynu maanta qaadanayno. marka ugu horeyn haddaba qofkii kaasheerka ahaa waa inuu soo booqdaa website-kan halkan ku qoran yowboss. saad arkaysaan yowboss.com buu ku qorayaa halkaas searchinka. intaa kadib yowboss.com marka uu halkaa ku qoro, marka mar walba arday su-aalaha wax ku fahmaan qofku. marka yowboss markuu halkaa ku qoro wuxuu dooranayaa halkaa login ay ku taalo. marka akoonkii aad qofka kaasheerka u samaysay, akoonkii aad u samaysay ayaad passwordkii iyo usernamekii aad u samaysay ayaad u sheegaysaa qofkii kaasheerka ahaa, kadibna wuu ku gelayaa. markaasaad halkan ku wada arkaysaan arday, halkan ayuu gelinayaa usernamekii aad u samaysay. tusaale ahaan candi 27 buu ahaa usernamekii aan u sameeyey qofka kaasheerkayga ah ama ii iibinaya alaabaha shaqaalaha. kadib halkan ama halwadeenka, marka halkan waxaan gelinayaa passwordkiisaan gelinayaa halkan. marka qofkii halwadeenka ahaa wuxuu taabanayaa hadduu rabo in passwordka mar walba la xasuusiyo oo si fudud u galo, halkan buu taabanayaa remember ay ku taalo. haddii kalena log in buu taabanaya. marka rememberkaasi mar walba inaad si fudud u gasho meeshaadii ama akoonkaaga ay ku sahlaysaa oo passwordkii iyo usernamekii baa halkan kuu saarnaanaya mar walba. marka waxba qorqori maysid, login wada mar walba taabanaysa haddaad halkaa saxdo. laakiin haddaad sixi weydo mar walba inaad dib passwordka u gelisay noqonaysaa haddii aad galis tiraaho. marka login baan taabanayaa. markaan login taabtay saad arkayso akoonkii wuxuu keenay awoodda keliya lahaa ama awoodda yar ee laygu talagalay lahaa iibinta oo keliya. marka iibin oo keliya saad arkayso khaanadihii badnaayee maamulaha ama adminka ama qofka meherada iskale ama ganacsiga qofka iskale, khaanadihii badnaayee meeshan ooli jiray ee uu maamuli jiray ma yaalaan hadda. saad arkayso haddeer maxaa yaala homeka hadduu tago waxaa yaala waxba ma yaalaan, midhi ma yaal maca dhaqdhaqaaqyadii ganacsiga wixii oo dhan ma arkayo qofkii iibiyaha ahaa ama kaasheerka ahaa ama alaabta iibinaya howlwadeenka ku ahaa. keliya wuxuu maamulayaa iibinta oo keliya. marka iibintii waa halkee? booskaasuu furaya. boos halka ay ku qoran tahay. booskaa marka uu furo muxuu sameynayaa? tusaale ahaan shayga uu iibinayo ayuu halkan gelinayaa. tusaale ahaan shayguu iibinayaa waa maxay? ama sku numberkuu gelinayaa ama shaygaa magaciisa. tusaale ahaan caano oo kale ayaan iibinayaa tusaale ahaan. marka arday intaanu gelin boss managerka mar walba hal su-aal baa la weydiinaya. halkaa su-aal waxay noqonaysaa imisa lacag ah ayaad gacanta ku haysaa? lacagta aad imika gacanta ku haysaa waa imisa? cashka aad gacanta ku haysaa waa imisa? tusaale ahaan haddii aan waxba hayn zero buu gelinayaa. haddii uu lacag hayo tusaale ahaan $10 ama haddii cash tahay Soomaali shilin hadday tahay 100,000 oo shilin oo kale, haddii laakiin dollar tahay $10 oo kale, haddii aan waxba hayn zero buu gelinayaa saas oo kale. markaa tusaale ahaan zero baan gelinayo, hadda lacag gacanta kuma hayo. kadibna wuu isu kay furayaa. ma aragtaa? markaasaad arkayso waxaa isu kaa furayaa qaybtii lagu iibinayay alaabaha. marka markaba halkan waxaa kuusoo istaagaya alaabihii ama productigii. imika tusaale ahaan productiyada shirkadan dacar shopping la idhaaho ay hayso, saad wada ogeydeen wax productiya ama stogeena ama bakhaarkeena waxaa inoo yaala keliya caano ayaa inoo yaala bakhaarka, wax kale inooma yaalaan. marka caanahaas haddaad rabto in qof baa kuu yimid tusaale ahaan iga iibi caana buu ku yidhi, caanihii baad ka iibinaysaa. kadib maxaad samaynaysaa? haddii shaygu aanu uu qarsoon yaho alaabtaad haysaa ay badan tahay, sku numberka ama coidka dabada kaga qoran shayga ayaad halkaa ku qoraysaa, ama magaca shayga tusaalehaan caano ayaad ku qoraysaa. saasaa kaaga fududba. caana marka aad qorto markaba waxaa kuu soo baxaya caanihii, kadibna waad dooranaysaa automatically halkanay ku imanayaan. halkan markay ku yimaadaan imisa xabuu qofkaas ka qaadanaya. halkan waa quantity saad arkayso. khaanadan yar mar walba tirada inta xabo qofkaasi qaadanayo ayaa isku soo qoraysaa. tusaale ahaan halka yar baad ka bedelaysaa 5 xabo, 4 xabo, 1 xabo saasoo kale. markaa mar kastoo tiradu korodho qiimaha isbedelaya, waa totalka, waa lacagtii. 3 xabo maxay noqonayaan? $6. 7 xabo $10. eg xisaabtii baa kuu fududaanaysa, waxba isu weegiin maysid.
boqol xaba 10 xaba hadduu iibsado waa 15 dollar 10 xabo caanaaba qofkaasi iga dalbaday tusaale ahaan kadibna mar ali iyo qofkaasi markaad lacagta gacanta kaga dhigto ee lacagtii uu gacanta kugu dhiibo ayaa waxa aad sameynaysaa meesha ay cash ku taale cash ayaa taabanaysaa cash marka aad taabato waxaad leedahay waka lacagtii u bixiyay saad arkayso markaba bogan baa kuu soo baxaya bogani waa juwankii weeyaan saad arkayso juwankii weeyaan qofkaasi markuu wax kaa iibsaday loo goynayay saad arkayso shirkadda magaceedii ayaa halkan ku taala waa dacar shopping magaalada uu ku yaalo iyo degmada uu kaga sii yaalo iyo wadada hormarta lambarka shirkadda lagala soo xidhiidhayo invoice numberka ama lambarka ID-ga waraaqdan invoice-ka ah ee sheegaysa qaanta la bixiyey lambarkeedu waa 01 oo waa juwankii ugu horeeyay shirkadda laga jaray ID-geeduna waa 01 sidoo kale customer walk customerku waa customer iska socday oo aan ma garanaysaa e-safe garaysnayn ama aan diiwaan gashanin hore waxay ka iibsan jirin tusaale ahaan shaygu ka iibsaday waa caano tusaale ahaan SKU numberka shaygaasi ama codeka barcodeka shaygaasi waa halkaa ku yaala tirada inta xabu kaa iibsaday waxa weeyaan waa xabad quantity waa kan 10 xabadood buu kaa iibsaday 10 piece 10 qaybood buu kaa iibsaday ama 10 midhii maxaad siinaysaa $1 iyo badh maxay noqonaysaa 15 xabadood lacagtoodu waa $15 lacagtu waa cash total paid waa 15 lacagtoo dhan uu wada bixiyay qofkaasi wakaa juwankii markaaba haddaad rabto inaad daabacdo print meesha ay ku qoran tahay baad taabanaysaa laakiin se markaad daabacayso waa inuu printerkii kugu xidhiidhsanaadaa ama device-kii printerka ama printer waa inaad haysataa waraaqda daabaca marka intaas ayaynu ku ekeysiinaynaa qaabka loo iibinayo alaabta waa intaa shayga markaad iibinayso waa kaa haddii shaygu kategoriyadoodii waa kuwan tusaalaan kategoriyadoodu waa cabitaano cuntooyin kategoriyadana waad kasoo dhex xulan kartaa saad arkayso marka waa intaasba qaabkaad wax u iibinaysaa waaba intaa marka tusaale ahaan haddii qofkaasi alaabtii tusaale ahaan waa tan waan iibinayaa tusaale ahaan kasoo qaad qofkaasi wuxuu rabaa inuu qaybo kala duwan lacagta u bixiyo badhna igu lahaada idhaaha badhna waa tan iyo wax noocaasa tusaale ahaan ama meelo kala siyaabo kala duwan ama macluumaad dheeraada haddaad gelinayso systemka multiple pay baad dooranaysaa tusaale ahaan payment method shayga nooca lacag bixinta card custom payment 1 custom 2 custom 3 marka payment methodyo badan haddaad systemkaagu leeyahay ama noocyo kala duwan tusaale sad oo kale sahal EVC saas oo kale haddii payment methodyo kala duwan ay jiraan oo aad wax ku iibiso saas oo kale ayaad sameynaysaa halkan baad gelinaysaa haddii aad note qorayso oo si aad maamulaha u ogeysiiso shaygii haddii qofkaas lacag ku gooday note halkan inaad note ugu qorto qofka lacagta ayaa ka dhiman tusaale ahaan note baad ugu qori kartaayo dee si hadhow toole ma garanaysaa qofkii wax xisaabinayay ama shirkadda xisaabinayay wuu arko lacagtaasi xagay ku maqan tahay iyo sababta ay u maqan tahay lambarka qofkaad gelin kartaa magaciisa waxaa doontaad notekaa ku qori kartaa amount lacagta uu bixinayo waa $1 tusaale ahaan kasoo qaad maxaa ku hadhay 0.5 baa balance ku ahaa qofka 0.5 ka balancega macluumaadkiisa halkan inaad geliso weeyaan haddii aan waxba bixin qofkaasi oo zero yahay oo aan waxba bixin lacagtoo dhan baa lagu yeelanayaa saad arkayso 1.5 baa halkaa ku qoran aan kuu soo dhaweeyo halkaa 1.5 baa ku qoran saad arkayso balance lacagtii oo dhan waa lagu leeyahay qofka wax lacaga mu bixin marka waa saas oo kale nooca lacag bixintu waa cash waa maxay macnaheedu waa lacagta cashka ama dollar ha noqoto ama 2 shilin ha noqoto ee gacanta lagaaga dhiibay lacagta hadday noqoto payment dhammaantood wada cash baad ka dhigan kartaa saa doontaad samayn kartaa tusaale ahaan qofkaas haddii lacagtii uu wada bixiyey tusaale ahaan 1.5 kiiba uu wada bixiyey waxba balance kuma aha imika saad arkayso notekan iyo waxaana iska masax haddii qofka aad rabto in payment ama nooca lacag bixinta uu isticmaalay mar walba la doorto haddii aad rabto settingska lagaga soo daraa adminka ama qofka maamulaha shirkadda ayaa kusoo daraya hadba lacag bixinta uu rabo in
qofkaasi lacagaha ku bixiyo. Marka custom payment kan qaabka loogu darayo xiisadaha dambana idinku tusi doonaa, ama ardaygii u baahda ee weydiiya waan u sheegi doonaa, uu weydiin karaa. laakiinse inta badan waxa ka fudud waxaan oo dhan cash payment methodka inaad mar walba cashka iska doorato, oo ma garanaysaa si aan ma garanaysaa hawl badanba dee aanay kuugu soo bixinba. cash markaad iska doorato, ama qofku saad ha ku diro ama sahal ha ku diro ama cash kuugu dhiibo, say doonta ha noqoto, isku meel bay ku wada dhacaysaa. marka waa saas oo kale waxaan gebigeediba waa intaa. laakiinse haddii qofku aad rabto in la ogaado qeyb inta qof ee saad ku dirtay, inta sahal ku dirtay, inta EVC ku dirtay, haddii aad rabto in la ogaado hadhow toole, waad kala dooran kartaa oo adminka ku shaqale inuu waxyaalaha soo dejiyo qofka shirkadda leh. marka saas oo kale weeyaan sida loo iibinayo alaabaha. marka xiisadaha dambe aynu gudbi doonaa. aad baa mahadsantihiin, nabadgelyo. sidoo kale waxaan rabaa in aan qeybtan xiisadeenan gudaheeda aan idinku daro qaabka qofka kaasheerka ah ama qofka alaabta iibinaya uu u sameynayo xisaab xidhka. xisaab xidhka maxaa loo yaqaanaa? xisaab xidhku waxa weeyaan waxay noqon kartaa waqtiga ay doonto. xisaab xidhka waxaa loo yaqaanaa waqtiga aad soo xidhaysa xisaabta, lacagaha kaa maqan aad xisaabsanayso, wixii aad iibisay aad xisaabsamayso, khasaarahaaga aad xisaabsanayso, faa'iidadaada aad xisaabsanayso, xilligaasaa xisaab xidh loo yaqaanaa. haddaba qofkii kaasheerka ahaa marka uu yoomkii oo dhan shaqaysto, ama waqtigii uu shaqaynayey ama xilligii xisaab xidhka loogu talagalay ay gaadho, uu maanta oo dhan lacagtii shaqeeyo, wuxuu sameynayaa wax xisaab xidh loo yaqaano. wuu close garaynayaa xisaabta. markuu xisaab xidhka sameynayo, haddaba muxuu sameynayaa? meeshaasuu taabanayaa yare egas ay ku qoran tahay, egas tayar buu taabanayaa, close register buu oranaya. marka xisaab xidhkii buu sameynayaa. xisaab xidhka haddaba markuu sameynayo, waxa weeyaan taariikhdiiba halkan ugu soo baxaysa. waa 3 February 2021 saacaddu xisaab xidhka sameynayaa waa 6:27 galabnimo oo kale. markuu waqtigii saa ugu soo baxo kadibna muxuu sameynayaa? wuxuu sameynayaa in ma garanaysaa waxa sameynaya xisaabihii halkan uu ka akhristo lacagaha gacanta uu ku hayay markii hore. markuu tusaale ahaan xisaab xidh baan iminka sameeyey, haddana waxaan rabaa in aan haddana xisaab cusub u furo. markastoo booskan aad xidho, halkan booskan aad xidho, waa markastood xisaab cusub furayso. saa ula soco. marka xisaabtan marka aad xidhayso waxay noqonaysaa lacagtii gacanta aad ku haysay markaad xisaabta furaysay maxay ahayd. markii ugu horeysay soo gelina booska waa talayna weydiiyey, waxba gacanta kumayna hayn, zero weeyaan. cash payment lacagaha aad shaqaysay waa $15. check you payment macnaheedu waxa weeyaan lacagaha hubinta u baahan in dib loo eego ama la hubiyo, la hubinayay laakiin la leeyahay waanu bixinay weeyaan. laakiinse already wax check you yayaanay kugu taagnaan markaad xisaab xidhka sameynayso. wax hubin iyo waxa u baahan waa inay kuwaas zero noqdaan. card payment lacagaha card banki card lagu bixiyey ama cardka waxaa loo yaqaanaa master cardkan iyo waxyaalaha visa cardka iyo bank transfer payment lacagaha bangi ahaan lagugu soo dirayo. advance payment marka waa paymentiyadii kuwani waa payment materiada noocyada lacagaha lagu kala bixiyo. haddii tusaale ahaan aad qeybaha sahalka ku darsato oo kale, halkan oo kale kuusoo dhigmaysa saad sahal oo kale ayaa kuusoo dhigmaysa. halkan oo kale paymentiyada saad sahal wixii oo kale kuusoo dhigmaya. laakiinse muhiimaddu waxa weeyaan lacagaha ma garanaysaa total fund waa lacagaha la celiyey. refund haddaad maqasho waa lacagaha qofka loo celiyey. tusaale ahaan qofka wax kaa iibsanaya wuxuu rabaa in lacagta loo celiyo, dee refund qeybta refund ka raacinayaan. waa order dhacay ama iib la sameeyey oo haddana qofkii intuu ka noqday lacagtii loo celiyey, maxay noqonaysaa? qeybta refundka ayay gelaysaa. maalintaa wax lacaga maynu celin oo wax lacaga laynagala noqday ma jirto, laynagala noqday. marka total payment lacagaha aynu shaqeynay dhammaantood ama aynu iibabka aynu sameynay waxay noqonayaan $15. total sales lacagaha aynu iibinay dhammaan. haddaba totalka ugu dambeeya waa kan. totalka ugu dambeeya waa totalka dhammaan waxyaalaha aad iibisay waa $15. waxyaalihii laga googooyey wixii aad celisay halkan baad ka arkaysaa, laakiin totalka intaad iibisay waa $15. marka dhammaantood waa taa. intaa waad ila fahantay ma filaya. markaad intaa ila fahanto, halkan haddana detailskii productyada la iibiyey ama alaabaha la iibiyey detailskoodii ayaa halkan kusoo haraysa.
oo kuu yaala. marka xisaab xidhka marka aad samaynaysa kuugu dambeysa waad iska hubinaysaa wax cilad ah ama wax lacaga oo kugu dhiban haddii jiraan iska jeegare waxyaale haddii ay kugu harayaan waxyaalaha kaa khaldan wixii oo dhan iska jeegare kaasheerow ama qofka wax iibinayo. kadibna markaad xisaab xidhka samaynayso qofkii maamulaha ahaa ee shirkadda ama qofkii kaa sareeyey xisaabyaha ahaa ee xisaabta guud oo dhan fiirsanayay eegayay waa inaad note u reebtaa ama ogeysiis ama qoraal faahfaahina waa inaad u dirtaa. tusaale ahaan wixii maalintaa ku dhacay, wixii shaqada ku saabsan, wixii cilad ah waxaad ka cabanayso, wixii ku saabsan xisaabaadka meesha ku qoran ee aad xidhayso, wixii oo dhan baad halkaa ugu qoraysaa. kadibna marka aad ugu qorto notiska halkaa hoose waxaad samaynaysaa close baad leedahay. close marka aad taabato xisaab xidhkiisaasaad ku samaysay maanta hawshaadii halkan buu ku keenayaa systemku. khalaas waa saasoo kale xisaab xidhka loo samaynayaa. marka intaa inaad la fahanteen baan filayaa si fiican. aad baa mahadsantiin. qaabka xisaab xidhka loo samaynayana waa qaabka.